Assalaamu calaykum. Mawduuceena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa shanta caasimadood ee dunida ugu quruxda badan. Lambarka koowaad waxaa ku jira London, caasimadda boqortooyada England. Waxay soo gashay lambarka koowaad. Waa goob soo jiidasho leh. Kaalinta koowaad waxaa u doortay dalxiisayaasha dunida. Lambarka labaad waxaa ku jira Islamabad, magaalo madaxda waddanka Bakistan. Waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan dunida. Waxay aad u soo jiidatay indhaha dalxiisayaasha caalamka, waxayna u doorteen lambarka labaad. Lambarka saddexaad waxaa ku jira Berlin, caasimadda waddanka Germany. Waxay ka mid tahay 16 gobol ee waddankaasi, waxayna ku jirtaa caasimadaha ugu quruxda badan caalamka, iyadoo awood u yeelatay in ay ka soo kabsato burburkii 1945. Lambarka afaraad waxaa ku jira Washington, caasimadda ugu quwadda weyn USA. Waxaa la aasaasay 1791. Sidoo kale waa meesha ugu caansan dunida, waxayna awood u yeelatay inay soo gasho kaalinta afaraad. Lambarka ugu dambeeya ee ah lambarka shanaad waxaa ku jira Paris, waa caasimadda Faransa. Waxay nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto 10 magaalo ee dunida ugu quruxda badan, kadib markay dadkeedu geliyeen dadaal weyn. Marka laga yimaado caasimadaha, waa magaalada ugu quruxda badan dunida. Waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaaladeena. Mahadsanid.